Abdullahi Maxamuud Yaasiin Faray ayaa loo yaqaanaa oo caan ku yahay markay Yaasiin Faray ay dadku yiraahdaan waa la wareysanayaa waxa ku soo dhacaysa hay'adda NISA hay'adda NISA maxay ahayd waa marka waxaan kaga mahadcelinaynaa in uu fursadna siiyo oo noo ogolaado Yaasiin ku soo dhaw telefishinka SMS TV waxaan rabaa inaan ku weydiiyo hay'adda NISA wax badan baad ka shaqeynaysaa hay'adda NISA dadku hadda waxay u arkaan hay'ad aan ku shaqeynaynin qaabkii dadka Soomaaliyeed ay macnaha rabeen marka qaabka marka hay'adda NISA ay ku shaqeyso ayaan rabnaa bal inaad nooga sheekayso wax yar waa maasanta walaalkay xasaade iyo baada MSS waan leeyahay soo dhawaada aad aan ugu faraxsanahay naftigeyga maadaama in muddo ah aanan ka soo muuqan saxaafadda sababa jira awgood waxaan rabaa inaan hay'adda waxaad tiri waxaa lasoo xasuusanaya hay'addii nabad sugidda hay-addii nabad sugidda waa hay-ad lafdhabar u ah dowladnimada waa hay-ad mas-uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay amniga guud ee dalka waa hay-ad dadka ka shaqeeya oo ay yihiin dad oo u bareeray khataro sababo dalka iyo dadka awgiis waxaan rabaa marka hay-addaas iyo dadkeeduba waxay leeyihiin ixtiraam gaara waxay leeyihiin sharaf gaara waxay leeyihiin mudnaan gaara waxayna heli doonaan maalinteeda sababtoo hay-addaasu waa hay-ad albaabka laga soo galo waddanka waay sababta marka hay-adda nabad sugidda waxyaaba xun ay ka shaqeysaa loo leeyahay waxaa waaye saluug la saluugayo dowladnimada maana micnaheedu maahan hay-addu inay xun tahay maahan hay-addu inay ka shaqeyso wax aan dano ugu jirin dalka iyo dadka maahan in dadka lagu dhibaateeyo waxaan rabaa inaanu maadaama hay-addan aan waqtigeyga ugu badan aan ka soo shaqeeyey inaan ummadda Soomaaliyeed aan la wadaago in hay-addaasu ay tahay hay-ad ahmiyad gaara u leh dowladnimada iyo dalka iyo dadka Soomaaliyeedba sababa jira awgood iyo kala ardoonaanshaha waa laga yaabaa in mar waliba lagu xaqliyo dowladda iyo hoggaanka waddanka markaas jira in lagu xaqliyo hay-adda laakiin micnaheedu maaha in hay-adda iyo saraakiisheeda iyo xubnaheeduba ay ka shaqeeyaan waxaan saahayn aniga marka waan dhiirigelinayaa waana ku faraxsanahay muddo waqtigeyga ugu badan aan ku soo qaatay hay-adda nabad sugidda dadka hadda ka shaqeeyana waxaan leeyahay waxaa ka shaqeynaysiin waa cibaado waayahay xilligii uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gaar ahaan Fahad Yaasiin uu hay-addan maamulayay waxaa jiray tacadiyo iyo dhibaatooyin laga sheeganayo qaabkay hay-addu u falgeli jirtay arrimaha noocaas oo kale mar haddii aad kusimo ahayd taliyihii gobolka Banaadirna NISA aad ahayd ma ku soo gaari jireen horta waxaan rabaa inaan aadan ugu faraxsanahay su-aasha su-aal aad muhiim ah waaye hay-adda nabad sugidda waxa laga sheegaya iyo waxay tahay mar waliba waa labo hay-addu waxa laga sheegaya ma ahan tacadiyo ay ka shaqeysaa haba yaraatee ma jirin aniga maadaama aan hay-addan aan ka soo noqday askari oo aan hoggaankii ugu sarreeyey aan qabtay ku facmaahi soomana arkin waan maqlay oo waa laga yaabaa narrative-ka hay-adda laga abuurayo hay-addu wax qaldanay ka shaqeysaa hay-adda tacadiya geysata hay-adda dhibaata ka shaqeysaa laakiin micnaheedu maaha in waxaasu jiraan sababtoo ah waxaan xasuustaa waxaa lay magacaabay anigoo askari caadi sargaal caadiya iska ah taliyaha qaybta guud ee nabad sugidda gobolka Banaadir isbuuc intaana joogin waxaan arkay iyadoo leeyahay Yaasiin Faray waxaa sameeyey Yaasiin Faray aniga naftigeyga isirwanayo waxaad maxay yihiin aniga waxaan arkay iyadoo aniga naftigeyga shaki ay galay waxaan kuu sheegaa marka inay waxaas ay ahaayeen propaganda aan sal yar had lahayn oo waxba ka jirin laakiin dad badan baa waxaa la yiri waxay soo qabataa dad waxay iyadoon maxkamad aynan amarka bixin dad badan oo inta la soo qabto oo hay-addu soo qabato xabsiyada geyso godadka jilco ay geyso meelo badan ay geyso ka bacdina ayadoo aan la xukumin ay intaasoo bilood isaga jiraan soo ma dhicin waa maasan tahay horta hay-addu waxa ay ka shaqeyso shaqada ugu badan waxay gelisaa la dagaalanka argixisada
dadka ay beegsanayso ay raadinayso ay soo qabanayso ay la dagaalayso oo maalin kasta dagaal muuqda iyo dagaal aan muuqan ay kula jirto waa argagixiso. Argagixisaduna waa dareemaysaa dhibaatada ay ku hayso dalka, dhibaatada ay ku hayso caasimadda, dhibaatooyinka ay soo geysteen. waxaan rabaa marka hay-ad oo la falgasha si toosa iyo si dadban ula falgasha in waa laga yaabaa dadka lasoo qabanayo oo tuhunka lagu soo qabanayo ilaa dadna waa lasoo qabtaa oo xabsiya maraan kadibna ama dembiya lagu helo ama waa lagu waaya argaxiso waxaa loo gudbiyaa maxkamad. dadna waa dad dagaal toosa lagu soo qabta. waxa marka dadka argagixisada ah ee maalin walba hay-addu ay baacsanayso ay soo qabanayso waxaan ahayn oo hay-addu ay ka shaqayso waqtiyadii ugu dambeeyey haba ahaatee 3 sano ugu dambeysana hay-addu kamaysan shaqaynin wax ka baxsan marka laga reebo amniga qaranka, marka laga reebo amniga caasimadda. waxay la falgaraysay oo ka shaqaynaysay oo baacsanaysay argagixiso oo kaliya. waa gartay laakiin dad badanaad dad kale oo waxaa jiray aan argagixiso iyo ama al-shabaab midda rabtaba dhehe aan la shaqaynaynin oo waxaa jiray idaacadahana aad ka maqashay oo sheeganaya in tacadiyo loo geystay looguna geystay magaca nisa. marka arrimaha noocaas oo kale ah miyaynu ku soo gaarin? horta nisa magaca al-shabaab ama ugus iyo guud ahaan alqaacido waa dareemi kartaa bulsho dhan cadow aan muuqanay ku dhex jiro in laga soo saarana hay-addu ay xil saaran tahay. waa laga yaabaa dad lagu qaldamay oo markii dambena baaritaankii ay mareen awgiis dembi lagu waayey la iska sii daayey iyo dad lagu helay ama markhaatiyaale ama khiraale oo maxkamadda tegey. wax ka baxsan oo hay-adda nabadgudda ay ka shaqaysay ama dhibaato hay-adduna al-shabaab in dhibaato u geysato waa shaqadeeda. marka hay-addu maxay alqaacida ama argagixisa ay dhibaato ugu geysatay aniga cid dhihi karta inay jirto? waa gartay laakiin qaab siyaasadeed baa waxaa la leeyahay waxaa hay-adda u adeegsan jiray dowladdii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo gaar ahaan xilkii Fahad Yaasiin kaba soo qaadoo kale duulaankii lagu qaaday cabdiraxmaan cabdishakuur oo kale duulaankii lagu qaaday meelo badan oo kale dhammaantood marka la fiiriyo argagixiso ma ahayn. marka arrimaha noocaas oo kalea soo ma jirin. waa maasanta horta aniga arrimaha hadda ka hadlaysa arrimaha iga horreeyo waayo waxaan ka hadli karaa waxaan soo joogay ama aniga mas-uulka ka ahaa. marka weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur iyo hay-adda waxaad geysatay aniga waxaan soo joogay oo aniga aan qayb ka ahaa ma ahayn. waxaan aniga mas-uul ka ahayna ma ahayn. kula saxsanayeen masoo kula qaldanayeen marka taa kama hadli karo oo sababtoo hay-addan hay-ad waxaa waaye u xil saaran hay-ad sirdoon waayo inaad marka waxaasu in laga hadlana waxaadan adigu xoogaal ka ahayn ama aadan u joogin inaad ka hadasho munaasab maaha. marka waxaan is leeyahay munaasab ugu maahan wax iga horreeyey ama waxaana goobjoog u ahayn ama waxaana mas-uul ka ahayn inaan ka hadlo waxaan is leeyahay waa laga fiican yahay. weli lama arag hay-adda nabad sugidda kees dhacay oo baaritaan inta ku samaysay ay baaritaankeedii lagu guulaysto lama arkin. adigu ma naxasuusin kartaa keysas dhacay oo tiri waa baaraysaa hay-addu oo lagu guulaystay soo saarta ma naxasuusin kartaa? waa maasan tahay horta waa aragtida qaldane la aaminsan yahay waa taas. horta hay-addaanu marka laga hadlaayo ka hortagga khatarada cadowga wax aysan ku guulaysan waa yaryihiin. sidaan kuu sheegana hay-adda waxay waqtiga ugu badan ay gelisaa khatarada uga imaanaya dalka iyo dadka argixisada. waxaan aaminsanaha kaysaska la xiriira argixisada waxaan dhihi karaa intii aan u soo joogay ama aan mas-uulka ka ahaa kiis aysan ku guulaysan haba yaraatee ma jiriyo. kiiskii cabdiraxmaan yariisow adigu soo guddoomiyaha gobolka banaadir soo maadan haysan? maya maana joogin gobolka. ma kaa horreeyey? wax iga horreeya waay. waa yahay kiiska ikraan tahliil adigu ma joogta? waa joog yes. waa yahay inta badan waxyaabaha dadka ku soo dhacaya oo weliba maray maxkamad ay ama garyaqaankood inta badan sheegay oo lagu eedeeyo waxaa ka mid a ama niise lagu eedeeyo kiiskii ikraan tahliil. bal waxaad nooga warantaa kiiskii ikraan tahliil soo u dhacay? waa mahadsan tahay horta waa kiiskaas kiis muhiim waayo. kiiskaasu wuxuu ka duwan yahay kiisaskii dhacay ama dhibaatooyinkii hay-adda
iyo xubnaheeda lafdhabarka waa hay-adda soo gaaray wuxuu uga duwanaa wuxuu dhacay xilli xasaasiya oo dalka uu ku jiro marxalad aad u adag taasaa kaliftay inuu kiiskaanu inuu saameyn badan inuu yeesho maana ani ma aaminsani kama duwano wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee wax bartay iyagoo nool oo caafimaad qaba lixaadkooda uu taam yahay u bareeray inay naftooda iyo maalkooda inay u huraan dalka dadka Soomaaliyeed markaan gudaha kale marka kiiskaasu aniga xilligaas waxaan madax ka ahaa qaybta guud ee Nabadgelyada gobolka Banaadir gabadha Ikraan Taliilna waxay ahayd gabar micno badan ugu fadhiday hay-adda Nabadgelyada saameyn badanna ku lahayd hay-adda aniga marka waxaan iga soo gaartay maadaama anaga waxaan ku mashquulsanayn xorriyadihii dalka 26 Juun iyo 1 July waxaan rabaa marka kiiskaas wuxuu aniga iga soo gaaray maadaama aan madax ka ahaa gobolka in 28 bisha la waayay Ikraan kadibna maadaama anigu aan gobolka joogay taliye hay-adana oo wadanka ka maqnaa in aniga la xil saaray inaan kiiskaas inaan baaritaan maadaama hay-addu ay leedahay xarumo baariseed in gal la furo oo baaritaan la sameeyo baaritaan badan aan sameynay xiriiro badan aan sameynay dadkii aan asxaabta noo ahaa iyo guud ahaan hay-adda iyo laamaha kale dowladda iyo guud ahaan dowladnimada oo dhanba shaqooyin badan aan ka qabanay kadibna waxaa laga furay galbaariseedkiisii oo dhammaystiran waxaanu la wadaagay madaxdii hay-adda xilligaas joogtay markii uu dalka kusoo laabtay taliya hay-adda kadibna kiiskan waa la siyaasadeeyey oo la socotaan wadiiqooyinka uu maray waxaanu ka shaqeynaa marka in maxkamadda ciidamadu inay iyadu ay soo farageliso oo ay nagala shaqeyso maadaama annagu aan accesskii iyo aqoontii iyo wadiiqooyinka loo mari karo annagu aan hayno guddi baariseed oo maxkamadda ciidamada iyo hay-adda ayaa waxay isla baareen kiiskaas asigoo dhammaystiran oo wax allaale wixii la sheegayay oo documentary maxkamadda ciidamada way yaalaan hay-adda Nabadgelyada way yaalaan wuxuu marka ka duwan yahay kiisaskii kale waa kiis gal leh oo laga garan karo lagana arki karo intii wado oo soo maray marka micnaheeda ma dhamaystiri karo yaa dilay marka gabadha yaa dilay xogta anaga aan hayno waxaan ku shaqeynayna waa xogta aan hayno waxa dilay argixisada oo u sababaynayo dagaalkii iyo wadiiqooyinkii naga dhaxeeyay dowladda gaar ahaan hay-adda amniga gaar ahaan hay-adda Nabadgelyada iyo argixisada waxaa jira dagaal muuqda iyo dagaal aan muuqan oo naga dhaxeeya marka gabadhaas xogta aan hayno waa inay afduubeen kadibna ay dileen xogta aan hayna anaga sidaas aan la sheegayso lana wadaagnay madaxda dowladda gabadha waxaa la leeyahay meesha ay deganeed waa meel Nabadgelyada oo aysan al-shabaab iyo tiimkooda soo geli karin ayaa la yiri ma fahamtay marka ayna adag tahay xitaa in laga soo gudbo xaruntana waxaa la yiri iyadoo sii gelaysa waa la arkay marka ma halkaasa shabaab imaan kartaa oo kala bixi kartaa gabadha وماسطة هرتو وحل ليه هي أما الشيء هي أما المقلعي هرتو حارون كا قبل معنتها أنت كلو بين أنا هرتو وحولي بقى وحنا سمينا بارتان لكن ما شيء مرتي يو مال لجوتي أنا أن أغنهي أما أن أغين حبيرتي مجرتو وصح صون هيدا يدقنيت يعني جودي هذا لكن waxaan gabadhan 26 Juun ayaa u dambeysay waxaan la tabay oo baaritaan la sameeyay oo la isku wareeray oo muddo la shaqeynayay annagu siyaasadeynta iyo banaanka waxa ka socda ka hor hay-adda waqti badan gelisay gabadhan inay dalka ka baxday inay meel ay laga watay iyo meel ay martay cid og habayraatay oo jirtaa ma jirto kaliya inay gabadhu maqan tahay baaritaan la sameeyay xogta la helana ay heeday inay afduubeen ay u gacan gashay shabaab lagu yaqaan waxa kamida in qofka ay dilaan ay ka run sheegaan qofka aysan dilinna ay dhahaan ma aanan dilin shabaab waxay tiraan oo gabadhaas ma aanan dilin marka xogtiina ma ku darsanteen in ay shabaab sheegtaba gabadhan anaga shaqo kuma leeyin dilkeed waa ma satahay horto cadow aad dirsantiin
sifa kasta uu kugu dhibaatay karo uu ka shaqaynaa argixisadu inay tiraahdo annagu gabadhaas ma dilin waxay ka arkeen dantooda micnaheeda maaha inaysan gabadhii dhibaatayn micnaheeda maaha inaysan dowladnimada kadib ay dhibaateeyeen ay xubno hay-adda ka tirsan ay afduubteen ay kaxaysteen ay geysteen meelaha ay ka taliyaan waxaan rabnaa horta inay yidhaahdaan annagu maana dilin maana arkin waa qayb ka mida dagaalka ay nagula jiraan xaruntu ma leedahay iyo meesha sooma lahan CCTV camera sooma lahan oo computer ka shaqeysa waa maasata horta way leedahay iyo say u shaqeyso iyo intii ka qusaysa kiiskaas isagoo dhammaystiran oo documentary oo gal fayl ah ayuu wuxuu yaalaa ciddii rabto inay ogaato maxkamadda ciidamada gacanta ku hayso oo maxkamadda ciidamada qalabka sida taliyaha cusubna uu hayaa marka faahfaahin inaan ka bixiyo mar rabo meeshaas lagala xiriiri karaa hooyadii dhashay iyo aabbihii dhalay iyo ehelkoodu waa kuwa idaacadaha ka ooyinayay idaacadaha ka qaylinayay cid la hadashay oo maxaa diiday in lala hadlo la qanciyo waalidka iyo ehelka waa maase tahay horta waalidka iyo ehelku dadka way ka duwan yihiin waayo waa waalid iyo ehel xanuun gaara ayay qabaan oo ummadda soomaaliyeed ay dareemi karaan waxaan rabaa horta aniga ka yaasiin ahaan xiriir waa la sameeyey bilowga kiiskan ilaa gabadha nolosheeda iyadoo joogto ayaan xiriir fiican aan lahayn hooyada iyo waalidka xiriir aan lahayn in ay maqan tahaba waxay naga soo gaarta annaga waalidka ma in annagu maanan ogeyn oo annagu ulku baarlamaan ahayn in la laayahay meesha inooga timiday waa ehelka meeshaasaan aan shaqada hawsha ka bilownay annagana waa la xiriirnay intii aan hawshaan aan wadnana tillaab kasta ee nagu soo kororto iyo wax waliba oo nagu soo baxo waan la wadaagaynay ehelada balse hadalkooda iyo tiiraanyadooda iyo lama qiimi karo waayo waa waalid oo ii sheegeen laguma qiimi karo inay xun yihiin inaysan yihiin waxaa lagu qiimi karaa kaliya inay yihiin waalid iyo walaal xanuun badan dareemayo arrintaasuna arrin ugubahay ahaaday oo wax hore u dhacay xataa maysan ahayn marka waxaan leenahay xanuunkaas wuuna soo wada qabtay anigana si gaara ayuu ii qabtay sababtoo waxaan ahayn asxaab waxaan ahayn shaqo wadaag mana aaminsani aniga inaanu ii sheegeen ikraan sifa lagu dhibaatay karo oo dowladnimada gudaheeda lagu dhibaatay karo aniga aan ogahay ma jirto waxaan rabaa marka inaan bulshada aan la wadaago inaysan waxa la sheegayo inaysan waxba ka jirin oo marka laga reebo inay gabadhii in la waayey oo la laayahay iyo inay xubin ka ahayd xubnaha firfircoon ay haddana qaabka madaxda nisa ay u wajaheen kiiskaasi macal fahad iyo adigoo markaasi macnaha ragga lagu eedeynay ahaayeen marka aad eegto iyo qaabka uga fal celiyeen oo sidii la rabay ma uga fal celiseen macnaha hooyada iyo aabbaha waxaa ku fillayd iyo keliya inaad tiraahdaan ood ku qancisaan gabadha meydkeedii xataa in muxuu ah iyo meeshii laga qabtay iyo inaad ku qancisaan arrimaha noocaas oo kalea soo waajib idin saaran ma ahayn sax laakiin horta wadiiqo kasta ee aan u marnay kiiskan waanu la wadaagnay ehelada sidaan ula wadaagayno madaxda qaranka ayagu waxay leeyihin lama wadaagin ayagu waxay leeyihiin cid nabad sugidda ka tirsan oo gabadha markii la waaye na soo wacday ama aan la hadal horta waxaan rabaa kiisku xilliga uu siyaasadda aaday oo buuqa iyo sawaxanka u galay waxaa nagula jirtay oo qayb ka ahayd shaqadaas maxkamadda ciidamada qalabka sida marka waa dareemi kartaa kiis guddi heer maxkamadeeda kiisay qabanayaan lagana riboor garaynayo madaxdii qaranka inay lala socodsiin karo meeshuu maraayo ii sheegeen ehelada waa sax waa lala wadaagay balse inay ku qancaan aysan ku qanceen haddii ay noqoto kiiskii ikraan tahliil maadaama ay waalidiintooda iyo dadkooda leeyihiin waa ku dacwoonaynaa maxkamad in inta laga furo in muxuu ahay maxkamaddii aada idinkuna ka garbaxdaan ma laga yaaba horta waa mahadsan tahay horta kiiskaasu wuxuu ahaa kiis culeyskiisa wata annagu horta cid aniga wax ii haysataana ma ogeynba shalana ma ogeyn haddana ma ogeyn marka laga reebo barbagandada iyo buuqa iyo sawaxanka
waxaan rabnaa horta waxa laga shaqaynayo haddaanan la fahansanayn dhibaatada ay leedahay anigu waxaan aaminsanahay waxaan ka shaqaynaya waa aqaanaa dhibaato aniga aan geystay ama dad aniga ilamida ay geysteen oon ogaya haba yaraatee ma jirto waxaan markaan isleeyahay kiiskaas wuxuu ahaa kiis dad si qaldan loo adeegsanayo oo la adeegsanayo maahina kiis qof dhibaatada gabadha u geysatay hadday jirto annaga naftigeena shalana diyaar u ahayn inaanu ii sheegeen inaanu ka hortagno welina annaga yaa diyaar u ah waxaan rabaa marka waa ogeeday in shalay hebelaa dilay hebelaa yeelay meelaysu jirin markii laga shaqeeyey kadib in ay maxkamaddu ciidamadu baaritaan ay samaysay hadday tahay xubnihii laga dacwoonayey hadday tahay hay-addii waxay soo saartay statementii iyo qoladan hadda joogtay ma u malaynaya inay ka furi karto kiiska waa mahadsan tahay horta qofku madaxda hadda joogta ayagay u taallaa sidii ay u wajahaan hawl annaga noo taallo aniga waxaan aaminsanahay sidii ay ku habbooneed shaqadii habbooneed inaan ka qabta kiiskaas micnaheeda ma ahan aniga inaan dhibaato geystay ama in aniga dacwo laga qabo aniga waxaan aaminsanahay qof mas-uuliyad haya mas-uuliyaddii uu hayay ina ii sheeg dhibaato loo geystay ayaan ahaa maana qof isagu dhibaato geystay iskumaanay arkayn qof hadda dhibaato geysato aan ogahay oo haba yaraatay jirtaana ma jirto waxaan isleeyahay marka cid alaalay ciddii kiiskaas ama caddayn hayso ama xog xoojinayso inay cadaalad inay hesho haysa wuxuu ka furan yahay kiiskaasu faylkiisu dhammaystiran maxkamadda ciidamada qalabka sida wayna furan tahay waaya ka gudbaynaa waxaan rabaa adigoo aad kooga mahad celinayo fursaddan aadna siisay ciidamada Eritrea loo qaaday maxaad ka og tahay ciidamada Eritrea loo qaaday waa ciidan Soomaaliyeed waa ciidan loogu talagalay inay dalka iyo dadka difaaciisa inay qayb ka qaataan wuxuuna ahaa fayl gooniya oo fayl ama hay'ad gaara ama ciidan gaar ay gacanta ku hayaan ma ahayn waa fayl oo special u ahaa sidii uu special u ahaa aan loogu wareejiyey madaxda tirada ciidamada Eritrea aaday ma noo sheegi kartaa inaan kuu sheego muhiim maahan waa madaxweynihii horaa sheegaba oo si babliga ula wadaagay ugu wareejiyey iyagoo dhammaystiran madaxweynaha jamhuuriyadda marka muhiim maahan in kaamka nuur shirbo maadaama dadka laga qaadayay lagu qorayay lagu feelgareynayay nabad sugidana ay taa shaqo ku lahayd soo ma ogaan kartaan tirada ilaa dad baa dhintay dad baa indhabeelay dad baa dhaawacmay ayaa la leeyahay horta inaan micnaheeda inaan ogeyn maaha inaanu dadka la wadaagno inaanu sheegno tiradooda aan muhiim ahayn sababtoo ah waa fayl gooniya saan kuu sheegaba sidii uu gooni u ahaa ayuu dowladda hadda jirta iyo hoggaankeeda cusub uu gooni ugu yahay ma loo tiro dhimata soo ma jirto maya wax dhintay oo aan ognahay haba yaraatee ma jirto haye toddoba la leeyahay isku meelay ku dhinteen qaaraa ku indhabeelay qaar ayagoo soo socda macnaha bahalla cuneen waxaasoo dhan hay-adda nise kama warqabin miya horta waxaan kuu sheegaa ciidan annagu waa soo marnay tababaraan soo marnay ciidan tababarka wax ku waxyeelooba mahane horta wax kale ma jiraan wax tababarka mid iyo labo tababarka wax ku soo gaareen wax dhici kara waay laakiin waxyaabaha aan maqlaynay oo baraha bulshada ayaan waxay yihiin waxaan aan ahayn barbagana oo been ah soomaaliduna waa iska taqaanaa anagu marka waxaan kusoo gabagabeynayaa feelka ciidanka Eritrea ciidankaas waa ciidan hay'adda nabadgelyada qaranka ka tirsan oo hay'adda u shaqeynayo oo hay'addu diratay oo hay'addu si gaar ah ay u haysa ma ahayn wuxuu ahaa ciidan qaran oo hay'addu ay wakiil uga heeday dowladda madaxdii joogtay xilligaas ayaa si gaara uga shaqeyn jirtay haddana waxaa ka shaqeynayo madaxda cusub okay in dadkaasi markii hore lagu wargeliyay inay dooxa iyo qadar iyo inay tagayaanoo halkaas ay ka tegayaan arrimo kale ma jirtaa horta ciidan marka la qorayo adiga waa taqaanaa wadiiqooyinka loo maro waxaa laga yaabaaba dad oo qafaal ciidan lagu geliyey inay ciidankii iyo guud ahaan waddankii ay madax ka noqdeen
marka waxaan rabaa sida loo qoray iyo waddooyinka loo maray iyo waxaas muhiim maaha waxaa muhiima ciidankii oo bad qaba oo nabad qaba oo dalka dadka wax soo bartay inay dalka yimaadaan ay qayb ka noqdaan xoreynta waa sax waaye laakiin qafaalku waa dawlad waaye inay qafaasho waa dhici jirta amba waa joogay ayadoo inta ciidan la qafaalo meel la geeyo laakiin ma dhacday dooxa lagu geynaa casmaradna ka degtay ma hayaan xogtaas ma hayo in dooxa la geeyaa la yiri eritrea la geeyay ma hayaan xogtaas haye saaxiibka Fahad Yaasiin wax badan aad ka ogtaa Soomaa yes inta badan qaabka uu hay'adda u shaqeynayay waxaa la leeyahay qaab siyaasadeed hay-adda dhanba qaab siyaasadeed oo ay ku shaqaysato dawladdu ayay ahayd baa la leeyahay meeshay u jihayso un bay aadi jirtaa la leeyahay marka xog arrintaas ma naga sii kartaa horta waa maasan tahay macnaha dadweynaha sidii hay-ad shirdoonoo baaraysa arrimo ka sokow dawladda un ba adeegsan jirtaa la horta waa maasan tahay horta hay-addu waxay mas-uul ka tahay amniga qaranka hay-addu dowladnimada meesha booliisku oo amniga gudaha mas-uul ka yahay militariga xuduudaha oo mas-uul ka yahay asluubtu xabsiyada iyo dhaqan celinta ay mas-uul ka tahay sirdoonku wuxuu mas-uul ka yahay dalka iyo dadka oo dhan shaqo gaara oo cayiman oo la leeyahay shaqadaasay qabanay hay-adda nabad sugiddu shaqo kale ma qaban karto ma jirto waxaan leeyahay marka hay-adda nabad sugiddu haddii dowladnimadii oo dhan ay ka shaqaynayso oo wax waliba isku filnaansho iyadoo iga gaartay ee hay-adihii kale dowladda ay ka shaqaynayso waa sax waana muhiim waana waajib in hay-addu mar haddii iyadu ay hagaagtay inay iyadu hagaajiso ay sabab u noqoto hay-adaha kale ee dowladda marka hay-addu reformka ku dhacay guud ahaan ciidamada qalabka sida iyo shaqaalaha dowladda waa reformkii iyada ku dhacay marka hogaankii xilligaas joogay wuxuu ka shaqeeyay hay-addan inay noqoto hay-ad sirdoon hay-ad iyaduna dhisanta hay-adihii kalena dhista waxa marka lagu colaadinayo waxay ahaaday capacity-ga intaa la eg waayahay intiinii ka shaqaynaysay xildhibaano ayaa wada noqoteen oo nabad sugidda adigoo Yaasiin Fareya Cornel Yaasiin Fareya ninka la yiraahdo kulane rag badan ayaa noqdayba marka waxaa la leeyahay waxay ku carareen in macnaha maadaama dawlad cusub hadday dhalato ay dhici karto in kiisas badan loo soo taago xasaanad bay u raadsadeen baa la yidhi arrintan noocaasa maxaa ka leedahay waa maasan tahay horta waxyaabaha la leeyahay kamid taha aniga waxaa jira kamid maaha horta aniga anaa iska hadli kara waa sax oo dad saraakiil oo fara badan intaa sheegay maana ka badan oo xildhibaan noqdo way jiraan laakiin micnaheedu maaha inay hay-addii shaqadii ay haayeen inay u cararayaan maahine qofku wuxuu ka shaqeynaya waxaan ahayn inuu ka shaqeeyo waad ogtahay aad u daneeya annaguna hay-adda kaliya maana ciidamada qalabka sidoo dhan ayaa laga aaday baarlamaan ciidanka booliiska Soomaaliya laga aaday oo saraakiil lafdhabar u ah ciidanka booliiska noqday xildhibaano ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laga aaday oo saraakiil lafdhabar u ah noqday xildhibaano waxaan aaminsanahay in waxa loo aaday inay tahay waddankaanu 16 sano ayuu wuxuu la falgalayay oo la diriirayay argaxiso oo caalamiya oo aad u dhib badan dhibaatooyin badanna ay dalka iyo dadka Soomaaliya u geysteen ciidamaduna waxay ahaayeen cid kale la falgasha argixisada dhibaato kasta ee dalka soo gaartay waxay soo gaaraysay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed cid hadda ka gaar ah oo dhibaato ka soo gaaraysay ma jirto annagu marka waxaan u aadnay baarlamaan uma cararin waxaan u aadnay maadaama aan 16 sano ee dalku argixisadu ay ka jirtay 13 sano kamida aanu qayb ka ahayn dagaalka argixisada lagula jiro saraakiil ka badan ku soo jirtana ay jirto in bal dhanka shuruucda inaan aaminsanahay inay tahay dalka meesha laga hagi karo amniga qaranka laga hagaajin karo inay tahay dhanka shuruucda oo la helo shuruuc lagula dagaallamo argixisada shuruuc lagu xoojiyo ciidamada qalabka sida si ay niyad ugu helaan ciidamada annagu marka waxaan u aadnay inaanu dagaalkii aan kula jirnay kooxaha argixisada inaan u weecino dhanka shuruucda oo aanu ka shaqeyno inaanu garab iyo gaashaan iyo wehel aan ugu noqono ciidamada qalabka sida iyo guud ahaan dowladnimadaba iyo shacabka Soomaaliyeed wax aad is leedahay intii aad ku jirtay ku shaqeynaysay magaca hay'adda nabad sugidda
wax aad maanta is leedahay waad ka qoobamayn kartaa ama aad is leedahay ama si khaladahay kaaga dhaceen ama si kasay kaaga dhaceen oo aad maanta dadka la wadaagayso may jiraan waa mahadsan tahay horta aad muhiim u tahay su-aashaas waa iga muhiimsan tahay su-aalaha kale aniga horta waxaan ahay shaksi ku dhashay burbur ku soo barbaara burbur aan qayb ka noqon weligiis walaada sokeeye ama urur diimeedyo ama iishii kooxihii dadkii warloodyadii dagaalamayay fursadna umaana soo helin anigoo aad u yar ayaan go'aansaday oo aad dareemi karto da'da aan jiro iyo da'dii aan xilliga aan ku soo jiray ciidamada